deeqdan lacageed oo ka timid walaalaha Muqdisho Principal ayaa waxaa maanta hay'adda Al-Mustaqim waxay u qaybisay dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaad sameeyay gobolka Shabeelle uu ka sameeyay gobolka Shabeellaha Dhexe kuna nool degmada Mahaday. Gargaarkan lacageed ayaa waxa ka faa'iideystay oo loo qaybiyay ilaa 60 qoys waxaana qoys waliba la gaarsiiyay $50. dadka loo qaybiyay deeqdan lacageed ayaa u mahadceliyay hay'adda Al-Mustaqim waxayna sheegeen deeqdan lacageed in la soo gaarsiiyay ayagoo la dhiban saameynta ay ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeelle. waa mahadsantiin walaalaha Muqdisho Principal adeega ay soo gaarsiiyeen waa ku mahadsan yihiin si deganaana ayaan ugu qaybinay shacabkii waana ku mahadsan yihiin ilaahay jira Allah ka siiyo hay'adda Al-Mustaqim waana soo gaarsiiyeen dalkaas waana ku mahadsan yihiin ajirna Allah ka siiyo. waxaan mahad celinayaa walaalaha Muqdisho waxay noo soo dhiibeen oo degmada taqaanaa iyo noogu soo dhiibeen degmada Mahaday hay'adda Al-Mustaqim ay soo gaarsiisay ayaan u mahad celinaynaa si nidaam aan u qaadanay waana u mahad celinaynaa waxaan ka rabnaa inay noo laabaan oo yacni adeegaas ay noo soo dhiibeen walaalaha Muqdisho Al-Mustaqim noogu soo dhiibeen inay haddana noo laabaan waa ka codsanaynaa intaasaan idin leenahay waana mahadsantiin. dhinaca kale gudoomiyaha degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Afrax ayaa dhankiisa mahadcelin balaaran u jeediyay hay'adda Al-Mustaqim iyo walaalaha Muqdisho Principal garab istaag ay u muujiyeen qoysaskii dhibaatada ay ka soo gaartay daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga. waxaana soo gaarsiiyay deeq lacag ah oo sadaqo ay soo sadaqaysteen waxaana soo gaarsiiyay hay'adda Al-Mustaqim taasoo ay soo dhiibtay walaalaha Muqdisho Principal waxaana soo gaartay 60 qoys oo qoyskiiba la siinayo $50 ayaana soo gaartay waana uga mahad celihaynaa. ugu dambeyn Cabdirashiid Cali Xasan oo ah agaasimaha hay'adda Al-Mustaqim Foundation ayaa si guud kaga warbixiyay deeqda ay maanta gaarsiiyeen dadka danyarta ee ku nool degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ilaahay waa iska leh oo maanta noo suuro geliyay inaan halkaan deeq lacageed soo gaarsiino degmada Mahaday. deeqda lacageed oo ka timid walaalaha Muqdisho Principal uguna tala galeen dadka danyarta ah oo ay saameeyeen fatahaadii webiga Shabeelle. waxaa maanta halkaan ugu qaybinay ilaa qoysas gaar ah ilaa 60 qoys oo min $50 sida arkayseen deeqdiina waa iyagana waxa ku dhahay way ka faa'iideysteen. waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan walaalaha Muqdisho Principal sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha hay'adda Cabdixakiin Abaas Xaji Iibaan iyo gudoomiyaha gargaarka walaalaha Muqdisho Principal oo hawshan si gooni isku xil saaray. sidoo kale waxa iyagana mahadsantiin leenahay gabdhaha gacal walaal baa UK oo iyagana barnaamijkaas si gooniya u qayb qaatay. waxaan sidoo kale ugu dambeyn u mahad celinaynaa wasiirka gargaarka ee maareynta masiibooyinka iyo maamulka degmada Mahaday oo ugu horeeyay gudoomiye Axmed laanta hawsha qabsoomi lahayn marka waxaa leenahay dhamaantiin waa mahadsantiin walaalaha kale Soomaaliyeed waxa ugu baaqan inay ka soo qayb qaataan walaalaha isoo garab istaagaan sidoo kale ee Muqdisho Principal ku soo deedsadaan. Ibrahim Ali Nur TV Universal Jowhar.